Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaad channelkayga asxaabey. Maanta waxaa idiin wadaa nashqadii loofka qaybteedii labaad. Idinka ballan qaadina idiin soo geliyo. Nashqadan aad ay u qurux badan tahay, laga faa'iideysto. Waa kana asxaabey, tintiisaana usoo kala baray. Marka hore kala bar yaro haaf aan kala baray. Kadib waa qiyaasane meesha loofka aad ka bilaabaysid. Haddii aad farahaaga ku cabire, haddii kaleetane maskaxdaada ka qiyaasay. Halkaasaan ka bilaaba aniga sida qalinkii inaad ku qoraysa camal shallada u marsiinay loofka. Qalinka markaa loofka ku qoraysid saa ugu qabanaysid camal shallada u qabanay, tinta dhex marsiinay, hore kaaga soo baxa maasha Allah. Way fududahay, aad u fududahay. Hore ka soo baxa maba ku dhibaayabo. Waxaa la rabaa inaad cabir ku socoto, adiga qiyaastaada ku socoto. Hadda waa kaas waa u jeedin ilaa hoos. maasha Allah si fiican ku soo baxay. Waa u jeedin meesha xataa afkiisa loofka soo baxo soo muuqday. maasha Allah. Hal qayb waay hadda loofka qaybtiisii koowaad waay. Dhinacaan markaas u kala baro, dhinaca kale haddana u wareegsana sidoo kale haddana u soo kala bara. Qurux maasha Allah saas qurux ugu soo baxaa. mar walba tinta kala baraysidna waa shalneynaysi ee isugu galgalinay tinta u kala baxdo. Hadii kaleeto hadaa kala bixin oo shallada hoos ku dhadhihin, waxa waaye tinta way ku soo raaraace jidka ka xumaanahay marka. saasaa u celcelinaysaa maasha Allah qurux. hal dhinaca saas dhaanay, dhinaca marka waa xiraa maduuba saa u jeedin. saasaan u duubaa tinta ma dheertahay ida is celinayso. Hadii tinta yartahay taakii waxaa ku qabanaysaa oo isaga celisid si hadhow tinta kale ugu darsoomin. qaybtii kale marka soo kala bareynaa isla sidii aan yeelaa qalinka camal sida aan u qabahay shallada u hayaa. saasa ugu soo wareejinaa meeshii kii kaleeta aan ku geeyaa. kadib qaybtaan hore madaxa aan kala bixinaa. qaybta fooda horeeta waxaan ka soo bixinaa xoogaa yar. waa idin tusinaa insha Allah. kala barka inaa aad isaga saxdaa la rabaa. maasha Allah aad u saxiisaa kala barka. qaybtii labaadna saanaan ku soo bixinay. waa u jeedin qaybtii labaadna waa xiray. waa kana maasha Allah. wax yar waxaan ka bixiyay fooda. wax yar tin ka soo reebay. loof caadi oo noqda u jeedin. marka maxaa ku sameynaa tabitaankii sidii loofkaan la raacaa. meeshaasaan ka bilaabaa. waa aragtiina u maleeyaa asxaabey. ma dhib badna, aad u fudud yahay. waa u jeedin sidii loofkii aan la raacaa asagane. qaybtan hoos oo dhan waa daba qaybta hoose awal xirxiraya video horeeta idiin soo galiyay. qaybta hoose dhan waxaa ku sameynay laastigan ku xirxirayay. hadda laakiin qaybtan hoose dhan waxaa rabaa inaad dabo. waa idiin sheegay 3 nooc in loo dabaayo. hadda nashqadii labaad rabaa loofka inaa idinka tuso. nashqada saddexaadna waa idiin soo gelinaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. nashqadii labaad waaye. wareegaas hoose dhan waa daba hadii Ilaahay yiraahdo. ilaa daawada sidaan u dabi doona asxaabey. laga faa'iideysto. way fududahay ma dhib badno. mar walba tinta waa iska celinaysaa idiin sheegay. hadii kaleeto waxa waaye kugu soo noqonay. waa kana qaybtii kale waa iska xirnay. si ii soo raacin marka waa daba 3 xaba ka bilaabay. marka hore 3 xaba qabanay. saasa soo dhaafina u jeedina u maleeyaa asxaabey. gabdhaha tinta loo qurxiyo. dadka waxay dhahan tin jil camal dabi kara. hadda waa u jeedin tinta aan dabaayo way jilcan tahay maasha Allah. ilaahay ha u dahay gabadha yartaa madaxeeda maasha Allah. Allah ha u barakeeyo. tin jilcan aan dabooya aad u jilcan. waa u jeedin dadka waxay dhahan tinta jilcan ma dameeyso way dabmee. tin dameyn ma lahan laakiin way ku kula qurux badan tahay. xoogaa mid adaga qurxoon markii la dabo.
maasha allah. Hadda tan naftarkeeda maliidata markaan dabo si kusoo baxaysa qurux maasha allah. waa u jeedin asxaabay sida loofkii aan dabitaankan u wareejinaa. afka hore marka hore tinta aad dabaysid waxaa la rabaa mar walba tinta quruxdeeda daarta meesha aa ka bilaabay afkeeda inaa yareysa. haddaad dabitaanka afkiisa balaarisid tinta maba kuu qurxanaa hayso. hadda fiiri loofka markaan soo kala baraayay afkiisa saa u dhuubi waa u jeedin meesha galaanka aad dabaayo afkiisa hore waa dhuube. waxaa la rabaa mar walba galaanka aad dabay afkiisa hore inaad dhuubto. hadduu afka hore kaa balaarto qurux ma naqanayo. quruxda tinta waxaa soo saaraya markaa afka hore ka dhuubisid. tinta qaybta hore qaybta dambe aa balaarinaya, qaybta horene waa dhuubinaya ka bilaabaysid. sidaasaa kusoo waday qurux markaas kusoo baxaa. laakiin haddaa dhahdid hayaacdaan u kala baraa balaaraan ka dhigdhigaa afka horeeto xoogaa quruxdiisa ma soo baxayso. quruxdeedu waxay soo baxee afka horeeto markaa ka dhuubto oo xoogaa haddaysan markaas tinta meesha laga bilaabayo ee dhuubitaanka oo macnaha ku qaabsameen. hadda tanoo kale loofka qurux ay noqonaysaa markaa afka hore ka dhuubta. laakiin haddaan dhaho tin badanaa kusoo qabanaa waa balaarinaa afka hore tin yar inaa kasoo qabataa la rabaa. foolxumo kaa naqanaa markaas quruxda loofka ma soo baxayso. iska ilaali meeshaas. waa u jeedin tinta aan daboysa u jilcan tahay. ilaahay ha u barakeeye maasha allah. tin walba waa la dabi karaa waxay u baahan tahay bis inaad dadaasho adiga tintana iska celisid sida aa u dabaysid aa ka taxadartid. waa ujeedin tinta isoo raacaysa dhan waa iska reeboyaa. haddaad iska reebin cunugana gabadha madaxa u dabaysana waa xanuunaya xaada kasoo raacday. waxaa waaye tintan way kaa foolxumeehe. waa kaasaa hadda halka qayb waa soo wareejinay ilaa gadaalaa geynay qaybta labaad. mar walba adi waxaa sameynaysaa aad tinta dabaysid inay isla sinaato. haddaa rabto labada dhinacaad dabee. hal dhinacaan soo daba hadda dhinaca kaleeta u wareegsada. haddana midigtii aan soo dabay bidixdii aan u wareegsaday. haddana midigtaan dabaa haddana bidixdaan dabaa. saasaa u dabaa. laakiin haddaa dhahdi marka hore halka dhinaca bidixdaan soo wada dabaa haddana dhinaca midigtaa hal mar dabaa xoogaa macnaha sinaasho ma kusoo baxaayo. wuxuu isla sinaa karaa markaa marba dhinac ka dabto. waa qiyaasi kartaa markaas sinaashaha. laakiin haddaa dhahdi hal dhinaca kasoo wada dabaa haddana dhinaca kale u maanaa waa wada dabaa qurux ma kusoo baxaayo. sinaashaha xoogaa yar ka qaldamaayo. marka marba dhinac inaa ka dabto waaye. hadda dhinaca midigtaan kasoo dabay dhinaca bidixda haddana ka dabaa. sidii leen u kala barooyaa waa ujeedin asxaabee. kala barka iska toosi mar walbo. kala barka haddaa iska toosisi wax ku dhibaa malahan. hala isku daya wax walbo waxay u baahan yihiin isku day. hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa rajeynaa inay ka faa'iideystaan. wax dhib badan ma aha maasha allah way fududahay. ma dhib badno. kala barkaas la iska saxaysaa. tintana afka horeeto waxoogaa waa ka dhudhuubine kadibna qaybta gadaalo u badine wax yar. markaa hor ka soo yareysid qaybta gadaalo waa u yareyne waa u badine qaybta hore u yareyne. maasha allah. gabadhaada quruxso qurxi gabadhaada maasha allah. waa kaasaa u jeedin waa bilaabe. tinta aan qaba haysa yartaa waa u jeedin. waxaa la rabaa in afka horeeta yaraato. hadday afka hore yaraato quruxa kusoo baxee. wax yariisaan qabanay tin aada u yar. taasaa ugu wareejinay marba dhinaca ka maray waa kusoo wareejihe. maasha allah. marba nashqad inaa ugu dabtaa la rabaa oo marba nooc maasha allah ka dhigtid. ha laga faa'iideysta asxaabey. waxaan jeclaa inaa idiin faa'iideeye. ha lagu baraatikeeye gabdhaha. gabar tin jilcan haddii kuu joogtay oo tin jilcan ma dabi kari dhehaysa waa kana tin jilcan waa la daboyaahe ka faa'iideysa bal insha allah. mida kale way ka dhib badan tahay tinta jilcan.
tinta xoogay adaga dabitaanka u fudud markaa dabaysidna ku fududahay wayna ku qurux badan tahay xoogay saana kusoo wadina oo lagu wareejinaa fiidiyoyaasha waxaan idinkugu soo dheereeyo oo kugu jarjari waayo waxaan isleeyahay si fiican ha uu fahmaano maadaama aad tin dabaysid u kala dhigdhig si fiican ha u fahmaano waxaan rajeeyaa inaad fahmi doontiin insha allah ilaa geeskan saas ku geeyaa meesha geeska hadda kan aan geeyaa haddana geynaa inta mar walbana iska reeb intay kusoo raacdo waa kana waa soo dhameeyey halkan dhinacaan soo daba hadeertaan dhinacan waa soo dhameeyey asxaabe waa ujeediin waa idin tusaya asxaabe dhinacan haddaan dabo oo dhinaca kalena dabo inay isla sinaahaynin fiiri ma sinaahays hadda laba xaba soo dabay iyo labadii kaleeta aan dabay way isla siman yihiin marka halkaan xabo aan soo dabay haddana halkii kale meesha aan ka dabi lahay kii kalean ku xijiyey ina isla sinaahayn aan ku tusaa marka khaladka ka imaanayo marka labadaas kale aan dabayay waxaan sameeyey halaan soo dabay haddana midigtaan ka dabay haddana bidixtaan ka dabay markaan waxaan sameeyey laba xabo markaas saas u dabay midigta ka dabay kana bidixda ka dabay kana midigta ka dabay kana bidixda ka dabay afar xabo aan saas u dabay kii kale waxaa sameeyey hal xabo markaa dabay kii kale midigta bidixda inta aadi lahay kii kale ku dhammaystiray marka fiiri ma isla ekaanayso way kala badanee waxaana keenayo tinta macnaha halka dhinaca ka soo dabtay qiyaasta dhanaa dhumayso inkastoo hadda maasha allah ay iska qurux badan tahay haddana waxaa waaye qiyaasta dhumayso waa idin tusinaa fiiri waxaa fiican marba dhinaca inaa aado haddaa midigta kasoo dabtay haddana bidixdaa ka dabay midigtaa ka dabay haddana bidixdaa ka dabay saasaa u waday haddii kale tinta markaa kala baraysid xoogaa way kaa kala badbadani hal dhinacan kaliya mara haddaa dhahday hadda laba xabaa idinka tusay iyadoo midig iyo bidix la aadayo haddana labadii kale u dambeysay waxaan sameeyey hal dhinacaan ka dabay haddana labadan kalena hal dhinaca hal mar inaan ka daba rabaa ma isla ekaanaysa marka qiyaasta dhanaa ka dhumeeya taasna hal iska fiiriyo qaybtaas hoose isoo raraace waa iska xiraa maasha allah asxaabi laga faa'iideysto tintan nashqad qurux badan waaye sida oo marka hore soo gelinayo dadaa jecleen oo tinta lasii deynayo inay tinta maxaa la dhahay u xirnaato rabo oo inay kasoo tataagnaato ama kasoo dadaadato dadaa jecleen marka saana u samaysan kartaa qaybta saddexaadna insha allah waa idiin soo gelin doonaa haddii ilaahay yiraahdo waa ujeediin asxaabi kala barka hadeertaan qiyaas malahan waxaana keenayo hadda fiirim isku eg tahay qaybtii aan dabay tinta laba isu leedahay hadda xabadan aan dabay xabada ku aadan uma eko waxaana keenayo marka aan tan dabay tan kale inaan dabay rabo ku aadan ma sameynin waxaa sameeyey midda ku xigtaan dabay marka taas waxaa ka imaanaya inay isla ekaan weyso asaa laga faa'iideysta asxaabi tintan waxaa rajeynayaa inay idin anfici doonto nashqadaha tinta idiin soo gelihaayo nashqado badan insha allah wixii aan aqaan waa idiin soo gelina haddii ilaahay yiraahdo adigana waxaa la rabaa hooyo haddaa tahay inaad ka faa'iideysatid nashqad walba aan soo geliya ku baraatikeeso gabar haddii kuu joogto gabadhaada ugu dabtid maasha allah ilaahay gabdhahena hanoo deysto gabdhaha hala qurxiyo insha allah maasha allah
saana ku wareejinaa meeshii geena haddana oo bilowga waa u jeedin asxaabe meeshii geena soo wareejinaa xarajina insha Allah inaad ka faa'iido doonteen waa u jeedin qaybta dambe way weynaatay qaybta horena way yar tahay ma isla sinna hadda midka aan dawaay iyo midka ka soo horjeedo waxaan keenayo hal mar waxaa sameeyay laba xabo isku hal dhinac isku yahay hal mar dabe hal dhinac marka dabta dhinac kale ka soo horjeedana dabta la rabaa si tinta isku leekaatay oo qurux badnaato hadda naftirkeeda ma fool xumo ma sha Allah inta siirka leh waaye saabay laga faa'iideysto hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rajeynaa gabdhahooda inay timaha u quruxsan doonaan ma sha Allah maskaxdaada iyo caqligaada adeegso kala barkana iska toosi ma sha Allah ku qurux badnaahayba sidaan idiin sheegana gabdhaha madaxa saliida loo marinaa markii tinta loo dabo waa inay habeen walba saliid ku seexisaa madaxa saliid la'aan aad dhigin tinta qurux ay kasii qaaday mar walba saliid mariso laakiin iyada isku daban haddaad tiraahdo saliid ma marinayo sideeda ku deyna gabadha madax waa ka qalalaa ha lagu dadaalo gabdhaha tintana waa isku dhagdhagay ما شاء الله صحابي كفايدست waxaa idiin soo wadaa insha Allah barnaamij cusub hooyooyinka Soomaaliyeed ugu talagalay marabta uwad wanaagsan mawduucaas laga faa'iideysto insha Allah musalsal waaye waa idiin soo wadaa sagan hadii Ilaahay yiraahdo waa idiin soo galinaa qaybtii hore waa soo dhameeyay marka qaybta gadaal waxaa sameynaa qaybta gadaal waxa xabo yar asagana ka bixina kadib waxaa sameynaa meesha isku xiri jiray laba xabo waaweyn aan ka dhigaa laba loof waaweyn aan ka dhigaa kii hore waxaan sameeyay laastiga dabada ugu qabtay waa galaamo hal galaana ka dhigay kan laakiin galaan ma ka dhigay waxaa sameynaa marka hal qayb ka dabo asagan waxaan ka dhigaa laba xabo oo isku soo horjeedo loof mar walba shanada sasaga marinay tinta si ku raacin ku dadaal tinta inaysan ku soo raacin quruxa ku soo bixi markaas jidka inuu ka saxmo oo waxa la rabaa tinta meesheeda ay joogto tin walba booskeeda joogto haday ku soo raacday ka qaldanta biswaay waxa way jidkiisa ma qurux badnaahay ما شاء الله قروح يكسب بحد ما شاء الله قيب تانوري قيب فقدالنا وإذن تسدونا إن شاء الله وجيد انت يرتاق قبناي مرول بأفكا وحال رواينا يريسو تنتيس هادي يريسو قروح ينقني
intaas yararkaan ku wadaa kadib gadaal markay tagta ayadaaba iska badanayso. saana lagu wadaa meesha waxaa la geenaa ugu dambeyso oo loofka afkiisa ah. qaal aad asxaabi fiidiyoga hadda idinku dheereeyay waxaa waaye cashirka si fiican loo fahmo isleeyahay waxa aad dabayso dadka si fiican u tus insha Allah inaad ka faa'iideysan doontiin rajeynaa. gabdhaha lay qurxiya hadaba kaasaahe waa idiin soo geliyay xogaa nashqad 2 xabo miya 3 xabo idiin soo geliya umaleynaa insha Allah kuwa kalena waan soo gelinaa. gabdhaha lay qurxiyo nashqad walbaan soo geliyo ha lagu baraatikeeyo gabdhaha maasha Allah laga dhigo. faraha la isku dhaafinayo la fiiro dubitaanka dad aqoonin ee fududahay wax weyn maaha. tartiiban u wada wax boobsiis ama jiro waa fahmiye. waa kana hadda halka qayb waa soo dhamiyay waa soo dabay qaybtii labaad hadan daba hadda bidixda ka soo dabay midigtii hadan daba midigta markaan dabo kadib halka loof oo weyn ka sameeyna marka jidka mar walba oo loofka kala baraysid jid caadi ah bixinay adiga oo tinta jidkeeda camal ahay waa iska toosinay. markaas loofka weynayaan daba inta ka bilaaba loofka weyn marka qayb yar hore u soo bixiyay hore ugu soo bilaabo aan gadaal ugu wado saasa kor u soo wadaa kadib gadaal u celinaa. awl waxaan sameeyay qaybtan waa isku xiray waa idin sheegay hadda laakiin isku xiraayo waxaan rabaa inaan dabo sidaan uu dabaay marka arag kanta inaad sintaa la rabaa sinto gacan bini aadan kasta wax simi karin waxaan rabaa inaad dadaasho tinta si fiican u sinto kadib saasa u kala baraa. asxaabi wixii aan ka tago way sheegi kartiin. qaybta marka waa iska xiraa qaybtaas rabaa inaan dabo oo u jeedin qaybtan waa iska duubay halkaas qaybaan daba oo iska horkeenaa si loof qurux badan ugu soo baxo. qaybtaas soo daba qaybtana kadib umana halkaas ka bilaabay dhagkaasina waa simeen gida saas marka dhahdo horan ka bilaabaa dabitaanka qaybtan meeshaasan ka bilaabaa hore u soo daba gadaal u celinaa wal fahmo umaleena saxaabay
wixii aad fahmi weyseen commentiga igu soo weydiiya insha Allah. wixii ra'yi ay weydiina commentiga igu reeba. haddaa qaabka meesha loo wada iyo aad fahanto way iska fududahabo. wixii markay samaysan yihiin waxaad leedahay waxaan si loo sameeyay, laakiin marka aragto qaabka loo sameeyay way fududahay, wax dhib badan maaha. hala isku dayo, isku dayis bis rabtaa inaad isku daydo. waa kana soo wareeji meeshaasaan ka bilaabo u jeedin afka hore dabitaanka ka bilaabay, kadib gadaal u soo wareeji. kana sidii aan u kala baraa waa la simaa meesha afkiisaan ka bilaabaa hore kala barka u bixinaa, kadib qaybta gadaalna u soo dabaasagane. ma u jeedin asxaabe halaga faa'iideysta gabdhaha aad loo qurxiyo. ما شاء الله saasa uga bilaabay. haday idin tusin haddaan idin tusinaa meeshaan saasaan hore ugu dabay, kadib gadaalaan soo wareejinaa, gadaalaan soo celinaa. inaa fahmaysiin rajeyna insha Allah. ay qaldantay inta haddaa u aragtay inay qaldanto waxaa la rabaa inaad ka noqoto. ujeedin ما شاء الله. فيديوga dheer hadduu iscaaji idin geliyay isoo sheega insha Allah, waa idin soo gaagaabinaa. waxaan usoo dheeriyay waxaa la fahmaa isleeyahay insha Allah. dadka waxa ka faa'iidaan waxa fahmaan isleeyahay. marka hadda xoogaa idinku dheeraaday aad u dheeraaday isoo sheega insha Allah, waa idinka gaabinaa. markana hadda saasa ku wareejinaa, saasa ku wada ilaa meesha u dambeysa aan ka geeyo. taxadara loo baahan yahay tinta markaad dabayso, waayo tin badan oo kusoo raacayso. marka inaad taxadarto adoo degan aad sameysaa la rabaa insha Allah. waa kana ku soo dhameeyay inta saana ku soo baxday ma sha Allah. qurux saabay laga faa'iideysto gabdhaha hala quruxsado. waxaan rajeynaa insha Allah inay gabdhaha quruxsado doontiin. faa'iideyso waan insha Allah saabay. ما شاء الله سان الله في قصة بحين قصة aniga loofka qoritaankiisa ba ama sideedaba ku fiicneen. ما شاء الله ما شاء الله saan ku soo baxay. gabdhaha la qurxiyo hadaa lagu baraatikeeyo guriga markaa joogtid, gabdhaha tinta ku baraatikeeyo marba nashqad samee. awal qaybtan waxay yiri maanta qaybtan saan ka dhigay oo u jeedin. ما شاء الله laga faa'iideysto. haya asxaabe like share wixii commentiga ra'yiga ugu dhaafa, subscribe dheh si ay ku dhaafin casharada soo